ماني puntland federalism qaadatay waa isku xakamaysan maamul dhisan oo maanta si sahlan lagu faragelin karin oo wixii la doono aan laga yeelin waay shabaab ama nin muqdisho jooga oo power garaabin ama hunguri siyaasadeed oo extraordinary qaba ama qabaayil kale xitaa naftooda nimanka la yiraahdo hawiye deegaanka muqdisho saldhig u yahay siyaasadooda waxay ahayd jantarogan wax jantarogan baraka kana ma yeeshan mara mira dhalaan waxay tahay marka wixii iska nationalism ka ahayo wixii maxamed siyaad barre oo Soomaaliya ha noolaatay degdegtii ma shaqeynaysa hadda federalismki ilaa hadda waxa ka soo noqday inkastoo ilaa had ka fiican yahay kuwa kale Soomaaliland go'intooda ma shaqeynayso horta waqtigii waxaan la review gareey lahay waaba tahay laakiin soo gudub haashi wuxuu yiri markay jabto moogtaa nina shafki uga fadhiistaa nina loo uga fadhiistaa war dhibaatada wadanka ka jirta meeshii u xoog badan tahay waa deegaanada hawiye degan waa la degan yahay laakiin haddana waxa ilaa majority jirta dominant kalana jira qabiil dhaqaale ahaan siyaasad ahaan itira ahaan inta kale si uga madax fiiqana jira mas'uuliyad dheeraad ah laga rabaa inay saaraan for example laga bilaabo gaalkacyo kuna tagta all the way ay sheegeen Kismaayo meelaha qaarkoodna boqolkiiba 90 hawiye predominant uu ku yahay meelaha qaarkoodna over 60% uu ku yahay deef muqdishona waa degan yahay oo capitalka wadanka ah dawladda dhaxana gacmihiisa ku dumiyay oo ka soo qabo maalinta xamar maxamed siyaad laga saaray hargeysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed joogay baladweyne uu joogay gaalka meesha la jalaqsi joogay everywhere uu joogay dawladnimadii ayaga dumiyay ilaa haddana meesha dhibaatada ka bixi lahayd ayaga waa Soomaalidu marka federaal ay qaadatay federaalku wax kale ma ahan war nin walba wax guud oo naga dhaxay jiraan waxa ku gaar kaana adiguna xaliso kadib adigu waxaaga xalisiin Soomaali meesha hal isku keeno ani waxaan advocate gareena waxay tahay maalinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhintay xukunku waa la isku qabsaday waxa isku qabsaday muhaajiriin iyo isheega ansaartii isheega Madiina loogu tagay nimanka Madiina waxay dheen xukunka anaga rabna kuwa kale anaga rabnay dhaheen ilaa markii daba la yiraahdo arab ma yeelayso ama islaamnimadu ma shaqeynayso hadii qofka nabi maxamed dalay quraysh soo noqon specific loogu sheegay qofka today Soomaaliya badbaadinaya haduusan hawiye noqon Soomaaliya ma hagaagayso this is what I believe because hadda farmaajo kale Abdullah Yusuf kale taayimidi ha wareejaan laakiin crisis ka dhacay Soomaa shabaab jooga ani waxaan qabaa hawiye marada si kala ugu buntado Soomaalinimo yes waa shaqeyn doonta anu qabiil si gooni uguma gareena laakiin waxaan qabaa qof bin aadan ani ka soo qabo muquri maxaasi bulo bardi baladuna ka soo jeeda nin majeerteen ama nin isaaq intuu soo duulo meeshaas wax kama qaban karo nigada ka yimid meeshaas wax kama qaban karo dadka hiiraan degan oo ama hirshabeelle degan oo xooggoodii xoolahooda go'aan siyaasi qaado wax ka qaban kara magaalada muqdisho dadka xoolahooda yaalo oo siyaasadooda taalo oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa يعني باور بيسك u tahay dadkaas wax ka qaban kara kidib marka la kala garo shabaab la xoreeyo dhaqan xumada ani siyaasad xumada ani fawdan laga saaro Soomaaliya isu keen kara ani sida aan qabo waxay tahay wixii hargeysa hagaajiye bisa Soomaaliya hagaaji kara in godan oo biibay iyo faadi farmaajo iska socday iyo anada kale to diyaas baraha mar wiifinayo Soomaaliya han noolata dhaha iyo ani waxaas ma aaminsan today aniga deegaankayga ma tii karo ina iska xoreeyo aniga ninka madaxtooyada galay oo hawiye haduu samaan ku hayna dhulka hawiye inuu xoreeyana Soomaaliya ma xoreey karo waxna kama qaban karo ninka Soomaalida meeshii maadana Soomaaliya han noolaato leeyahay waxa oo makin meeshii la yiraahdo Madiina ka dhacaya ama makal muqarrar ka dhacaya ama maalinka soo ka dhacaya oo qaraxa waxa ku dhacay ani waxa u baahna ciidanka dagaalka galay ninka xabad ku dhacday nin dareemaya dhintay hebelkii hebel dhashay ama hebelkii in hebel ah nin u dareema u baahna dagaalka in la galo laakiin today farmaajo hadii ma too dhan oo bariir lagu dhinto iyo kanaha hadii baladweyne boqol qof u dhinto kanaha because it doesn't know anything faad wuxuu kanaha male waxay kanaha la maartay because war qof waxa loo baahan yahay xukunka inuu jirkiisa dadku ku yaalo oo dareen u leh oo waxaan gubayso oo waxaan aan privilege title kaliya aan ka rabin oo waxaan mas'uuliyad in tahay dareensan waxaan doqonka fiiri waxaan doqonka maal ilaa keenuu soo arooro lama rabe in siyaasad ka shaqeeyo loo baahan yahay hadda maanta today nin gabiyay actual qabiil ka soo hawiya dareenkiisu mis ka dhigay waan si darashalay 180 inta soo coda hawiya helay waxa isku ma ogol maalinta ayaga isdilayaan xoolo iyo xoog isku bixinaan maalinta dad kale ka shaqeynaa ma dalka loo turo siyaasadda loo turo inta hal yeel hal warwareeji kuma dhacaan war qof asaga markuu isdilayaan aan waxba isku reebanayn markii la dulmana dulmay hor istaagi karin hadii hadda xukunka loo dhiiban naftoodana sidii oo isaga daba wareejinayo it's unfortunate aniga waxaan qabaa war head today
farmaajo Soomaaliya loo dhaafay meeshu kala dhacay waa qaba haddaan loo dhaafayn hal farsaare declare war nin dagaal declare garina dagaal kala looga jawaaba inaad tugtugtid ma war sharci darro nin raba inuu kugu haysto kaana xoog badnayn kuguna adeegeen shaqada iyo jagada waxban aan ku qabanayn maxaa ka dhooranaysaa hawiye aniga waxaan qabaa ama dalkan haysaga tago ama dadka kala deegaanada u hagaagsaday hadda fiiri saciidana xamar uu joogay haddii doorasho la galayo farmaajo wuxuu ka qaadi kara lama arko axmed wuxuu ka qaadi kara lama arko principally mabaadi'da federalismka iyo mabaadi'da doorashada oo integrityga doorashada u taagnaayeen qabiil gooni u helinaya lama arko wax ayaga hadda haddii la fasaxa ka soo gaaray nimanka oo lagu fadhiyo oo jawhar lagu kufsanayo ayagoo xitaa xoog lagu dhameyn oo beledweyne lagu kufsanayo oo dhuusamaree lagu kufsanayo oo xamar lagu kufsanayo oo ayaga qoorta la isku gelinayo oo wareersan oo madaxweynayaashooda la garaacayo ayaga waay war hadda sharaf ku noolaan kari almiin inuu wax kala ogolo adiga isma ogolid inaad xukuntid dadkii kale meeshii maad inuu xukumo ogolo almiin kii kale yimaado kuma turaaye markiiba wuxuu aaminsan yahay wax kale maskaxdiisa ku jira aniga waxaan aaminsanahay hawiye hadduusan is xukumi karin waxaan faraha ka qaado bal meeshan Soomaaliya waa qabiil mana laga leexin karo dawladnimada markay halaawada casabida lagu hagaajiyaa waana ka bax Abdurrahman Deeq Sado